عمر عليكم السلام. سياد عليكم السلام. عبد الله عليكم السلام. سودو هذا ها عبدي موسى هيا ودهاي وعلى صوص على هالدقدقي دقدقسي هاتو دور دلو كاسينا كيش لعبو دلا سوماليا هرب ماذا. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. سودو هذا عذر عند ولا هين سودو هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إن شاء الله. عذر عند ولا هين دبيب كيس اللواء. سودو هذا horta waxaan inagu salaamayaa salaanta qaaliga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanta qaaliga ah ee islaamka ayaa inagu salaamayaa. insha allah ilaahay kelimadeyda kelimad khayr qabta allaha ka dhigo insha allah. birabadaan baa soo galaysa qof inaan caayo ama aflagaadeeyo uma soo galin, laakiin waxaan jeclaa mar walba inaan xaqa ka hadlo oo runta ka hadlo insha allah biidmillaahi kariim. kooba lama taagna qosli ogaa baan ku qoslayaa insha allah. hore baynu ugu sii soconaynaa. adinka waad aragteen aan u malaynayaa waxa facebooka aadka u dhex socda. ani duraad markaan hadlaayay dad badan baa yaabanaa, dad baa aad u yaabanaa, laakiin waxaa layidhi beenaale nin dhintay iyo nin dheer buu markhaati ka dhigtaa. waad aragteen baad u malaynayaa gabadha 3 cisho iyo 3 habeen daldalnayd silsiladaha ku xidhnayd ee cagaha iyo gacmuhuba googo-een. xaqa ilaahay baa bilaamiya. soomaali maxamed waad aragteen. ani dhibka waaban u soo taagnaaba oo waxaan indhahayga soo saaray bay ahayd tan, laakiin umaba taagnaynba. waad aragteen fideoyada magaalada saas facebooka website-ka meel walba la isla dhex socdo. bal ininka aqli ahaantiina dadka maxaad ku tilmaami lahaydeen? bal maxaad ku tilmaami lahaydeen? maxaad dhihi lahaydeen? xitaa wiilka aabis waad aragteen baan u malaynayaa fideoga qof aan fiirsan midhaa wuu yaryahay. dadka aad baa u fiirsadeen. horta xaqa allahana tuso, xaqa allahana tuso, iimaankana allaha nagu soo celiyo insha allah biidmillaahi kariim. xuquuqda islaamkana lama doodsiyo. waa run xoolonimo weeyaan. ani aad baan uga xumaaday. ka-ana gabadhaa wiil soomaaliyeed bay guursatay, gaal mayna guursan. qofaa shahaadanayo oo diinta islaamka haystay guursatay. waalidka saa sameeyeyna waa jaahileen. taan aad uga xumaaday idamaqda waxay tahay dowladda somalilan waxba way iga qaban weysay tiri. sabab somalilan 18 May waa loo dabaaldegaa. qof walbaa u dabaaldega, waa lagu farxaa. anaa ka mid a inta ku faraxda because kaana waa dad soomaaliyeed, waa dad walaalahay ah. fanaaniintayda kuwa ka mid a u heesa, u dabaaldega, farxad ugu heesa, niyad ugu heesa. intaa maxay tusayaan? inaan dad walaalahood nahay. dee ninkii wax kaa qaadanaya wax loo sheegaa moogta. hadda ka hor markaan idhi calamada dadka kale ad u heestaan indhaas ku qabataan, dee shalay waad arkayseen, maanta ma aragteen. dadkaad u oydaan ad u qaylidaan halkaad ka taagantiin waad u jeedaan. dadkaad heesaa u samaysaan halkaad ka taagantiin waad u jeedaan. dadkaad u dabaaldegtaan halkaad ka joogtaan waad aragtaan. wax alyaali waxaad tihiin de ma laha. gabooyow waxaad tihiin ma laha. waxay ninka waranka kugu taaga, ninka kugu gilgilaa ka dara.
shalay Maryam Mursal markay Hargeysa tagtay damcday inay iskuul masaakiinta u dhisto wixii gaadhi waa la iska og yahay haddaan farqura la noqon oo wala kicin cid wax ku qabanaysa ma laha nimanka fiidiyoga soo duubay soo hadlaaya adeer meesha waa joogtaa waxaad qabanaysaana ma laha xaqiiqda iyo runta inaad ka hadashaan oo dadkiina wax u qabataan baa ka horeysa gabadha ayay guursatay wecel bay yeeshaan gaalaa ka guursata wax walbay leeyihiin kama dhiidhiiriyaan markii meher xalaala loogu xidhana waa kuwaas aabihii dhanna sadaqii dhanna ee ducada u waday ee u socday ayaa gacanta laga jabiyey muxuu yeelay ani markaan shalay ooyayay qaar badan baa ila yaabanaa maanta waad aragteen indhaha ma saarteen indhaha ma la saaray waxaan ani ka hadlaayay gabadha sida loo galay waxa dilay ma waalidkeed baa mise yuhuud ba saa uma geli kartee gaalaba saa uma geli kartee qof islaan oo shahaadanaya aabaha noocee weeyaan gabadhiisa saa u galaya dadka kalena maxaad u malaynaysaa wiilkii guursaday maxaad u malaynaysaa aabihiis maxaad u malaynaysaan waana magaalada weyne Hargeysa dhex joogaan aw dawladnimadii Hargeysa waa dawlad madax bannaan gooni bay u goosatay cidna ma diidana gooni baad u goosatay laakiin dadkayni dhex jooga yaa sida dacwad u cunayni dhaha ama sida durwaagii libaaxa sharcigiinu muxuu dhigaa sharcigiinu ma gabooyaha la dilo dhigaa muxuu dhigaa sharcigiinu lacala inkoo dawlad ah ayaa dadka saa loo galay la daldalay aad wax ka qaban laadihiin oo dad walaalihiina oo inila dal ah oo inila dad ah oo inila diin ah oo inila dhiig ah ayaa saa u galaysaa war gabdhihiina xabashi baa qaba war kuwaha qurbaha qaar koo joogaa dartaada ka shaadanaya war gaal cad bay ka haystaan boyfriend girlfriend baa lagu haystaa most of them oo nuqudiyaan u naqaano marka dadkayga u galaysan anagu intaan joognaa maxaan ku aamusnaa gabadha sida xun loo galay ee leeydan nin midgaana bad guursatay nin gabooye ah ayaa bad guursatay war ninka gabooye muuna nin muslina ahayn war nin walaalkiina muuna ahayn cudur gabooye ayni dhalay noloshayda horta wallaahi oo bila haddaan habaarta ma habaarkayga u dhaca laakiin maanta waxaan leeyahay 18 Meeya mar walba u dabaaldegtaane taariikh waxa iman doonta haddaad dhibka joojin weydaan adhigu dabaaldegtaan wallaahi bilaa thumma wallaahi dadka noocaas idinkoo dawlad ah dadka shicibka ay hoos jooga ee nimada iniga raadsanayad saa u galaysaa war xaqa ka hadla maanta dantaa wax laga qabanaya ma laha dad badan oo isqarinaya jiro hoos isku qaba kaana waxay hoos ugu qabaan haddii la is sheego balaayadana dhacaysa wiilka reerkooga la marin gabadha reerkooga la marin hadda koorna waa inii sheegay wiil cidayada hadduu qabiilka guursadaan dhahay reerkiisa la baabiya ma aragteen waxaan ani ka hadlaayay ma aragteen wardad ashaadanaya oo walaalihiin baan nahay war maxay qabaan أنا وما قرنا واحد تسكن قباني محل قبان هالكيلة لا يا الدواء ورهالكيلة لا يا هاي ورقبلينا مركا عضان كيو قاراديو يهوديو كريستيان كيو قار ولي بقالوا بيان نيو كمدي ديرداني مركا قبلينا نيو قرقرسنا نيو وناكينو محل نوضبا ديقاتان ورمحاني نيال محاني نيد إني إيه البضانة ما نتجي يا وكل هذا بيقبو إن إسكو الشباب وباهنا هاي سبحان الله فيديو قوادر تنبانو ملاينا يا وعوكو ترى فيسبوك ايغا لوغا قالا اسكو قدر يا
gabadha gacmaheega oo mase waaba go-an yihiinba nacam qof bila'aadana oo saa loo galo weligay ma arag qof bila'aadana oo saa loo galo weligay ma arag cagaha gacmaha waan arkay kuwa la tumo la iskugu tago oo sida shimbirta maaragtay lagu soo guuso waan arkay magaalo hadduu hal qof oo gabooyaa dhaqaaqo sida shinida lagu dego waan arkay waan u soo taagnaa ma garatay kuwa faasas lala dhaco waan arkay oo dhiigooga dhulka lagu shubo waan soo arkay haddana soomaali weyne waad u jeedaan nacam gabadhoodii dhiigooga ahayd ee dheecaankooga ahayd ayay daldaleen saad aragtay u galeen qof islaama oo jiirhka kuugu yaallo hooyada iyo walaalka oo kula dhasho isku dhiigii isku dheecaantihiin nacam how come ay saa kuugu samayn karaan dadka gabadhoodii saa u galaya dadka kale inaadeer halkay jooga ilaabaan inagu dhaarshe halkay joogaan ceebta laysma marmariyade ceebta laysma marmariy hadday tuulooyinka ka dhici lahayd ee meelahaa kale ka dhici lahayd wuxun bay ahaan lahayd laakiin dowladdii dhannayd ay hoos joogeen ayayba ka dhacdayba wallaahi bilaahi darran markii loo dabaaldegayay 18 May waan ka qayb galay farxadooda war dadkani say inii jecel yihiin iyo saad ku tihiin isma laha waa kaafiya kala dheeri waa kaafiya kala dheeri laakiin wixii hadda ka dambeeya talow maxaa ka dambayn doona weligiinba 18 May u dabaaldega laakiin intaad xaqa saa aad dadka walaalihiin aad yeelaysaan wallahi wax inii barakoobaya ma laha taariikhda soomaaliya gashay ayaad wallahi galaysaan wallahi waad galaysaan nin walba nafsigu waxaa la yidhi xabashida ku mahmaahda berigi hore soomaalida bay dhaheen dhiilo ayaa nafsiga kaga dhaamsan jirnay haddana iyaga haama nagaga dhaamiya wallaahi heedhe hargeysa weyney dhiil baad ku dhaaminaysaani haamaani lagaga dhaamin doonaa markaad yurubta timaadana dadka inii turjubaanaa cid kale ma waa nin gabooye ah iyo naag gabooye ah magacyadaad ku timaadaana waa dad gabooye ah war cidnana inima wanjasho cidnana inima daba gasho qurbaha markii la joogana waa la siman yahay cid ku khaldami kartaa ma jirto naagtu ninkay rabtay guursataa ninkuna naagtu rabuu guursadaa because freedomnay joogaan freedom speech freedom culture freedom religion everything ayay dhex joogaan war iniguba gaaladu inima cusuriyaan inima dilaan inima abayusaan maxaa dadka ini daba dhigay walaaladiina inta yare dhulka iniiga fadhiyaan maxay nabad iniiga laayihiin gabadhiyo wiilka daaday guursadaan ilaahay baa calaf iskugu daray war ma ilaahay baad ka soo horjeedaan ilaahay baa calaf iskugu daray war wadku xilligu noo imaado ma naqaano war calafkeenu xilligu yahay ma naqaano intuba ilaahay bay ka soo go'daa ilaahay subxaana qaadira wuxuuna haadaa orama dhacaan war markay gabadh iyo wiil iscalfadaan ay isjeclaadeen ay iscalmadaan maxay inii diida inaad duco ugu dartaan aabbaha waxaan leeyahay aabba ma tiid walla inaadan aabba ahayn xitaa gaalkaa kaa fiican waxaa tahay laakiin maalinta qiyaamo ilaahay baa kaa jari doona xaqdarrada waxaan aad uga xumaaday videogaan daawaday nin baa hadlaaye wuxuu yidhi dadkan gabooye dee ha ogaadaan hadalkiisa horta imaba qancinba total imaba qancinba su u hadlayo ha ogaadaan de ilaa meel mala oo buu ku celceliyaa waryaa dhegayso waxaa la yidhi hadalka waxaa la yidhi hadalka maxaygiisa afkaa xada waxaad uurka ka leedahay afkaa xada haa saas ahayd soo ma wuxuu dha isleeya afkiibaa soo xadxaday uu isbar qabanaya adeer waxba baarkinkaa ku jira ama daacad u hadal ama naga dayso warkaaga anaa ini tusi doono weliba ninkaan ka hadlaayo daacadba uma hadlaya dee meel malehe meel male dadkayga gabooye waa walaalahoode isku hadlaayo like kind of you know adigii baaba dareemaya wuxuu qofkani ka hadlaayo daacadnima adeer kaa dheer uurka ka bugtaa lambar 1 inta qabyaaladaysta adaa ka kow ah waryaa adaa ka kow ah ha ogaadeen ila waa dad
سوح الله الله يا حل فرد دانك كجيدا والله قبضتي إن ويلك كلام الله الله يا هرجس جوجا كوتشرا إن حسب جنب عارضك إن هذا الكتعبان كأه يقدف وما بقي شيء كذا والله وما بقي أما نتصوح أما هذا الكنجدة dadka saa loo galay waa dadkaaga waa dhiigaaga waxay doonaa ha ahaadaan waa in kula dhalat dawladdiina waad ku jirtaa adoo halka jooga wax u qaban weyse sidan aqliga iga dhaafinadeero qaaliyo aqli waan ka daaliyaa run ahaan ani awal hore waan ku taageersanaa laakiin sheeko qotada iga dhaaf ama wax u qabo ama warka badan iga jooji أنا وحابن كوكا بوبي قبل يويل كاسو أنت أروس وين لورد جو أنت لا قلتين الدمت نفط بك بحضة كل كاسان لا الدولة والله والدولة شرت أنت كرنا سوماليا لا ترسنا هاي بين إني مشي جاي وحي أمسين بين أمسين وحي ما تلاقى بالعاب كأن أنا أول هرا وحي قلب بس كده دعينا ومرات تكون عقدة ذي سيرو وحي سوماليا وقا وحسب يقول شري لكن بلا بإني كورتين مطلع والله بلا إنك ورتي مدالا هذا كهر قبل ما تاي أيا تشتك كحدة ميت أيا تشتك كحدة أو لقحان داد سين أو تراهن هل كان لما مرين أيو أو بورا لقى سوريجي أنا ما كان بورو ميلكو يالان ولقينا ما عرق وأنا للدلي قبل دا الماء لقح كتورة بياقا نمسي يقع لقح كتورة لقح الناس كأوغد عاي أيا أودمت الله نحرستو waana la iskugu tagay sida la sheegayo shid baa loogu bilaabay iyadoo wadada maraysa allah u naxariista gabadha kullee aniga qisadeeda waa la isoo gudbiyay laakiin saa ugama sii hadlin waqti hore ay ahayd marka waxaan leeyahay dadkayga gabooye inaad indhaha furataan isku daya inaad wax qabsataan isku daya inaad raganimadiina soo saartaan isku daya naag baa nin guursato waa loo diiday nin baa naag guursada waa loo diiday adeer naftu mar bay baxdaa iska dhiciya meel walba oo joogtaan adeer biyo budaha loo biyo saliid ha loo kala baxo ilaa biyo saliid iskuma qaldamaane ha loo kala baxo iska celiya waliba dadka Afrikaan la hadlaya naftu mar bay baxdaaye wixii xumaan inagu dayana ku daya iskana dhiciya ha ka yeelina diintu haysataa dhaqanku haysataa waxaad ka liidata malaha hadduu ilaahay gabadhaada calaf ugu daro hadduu wiilkaaga calaf ugu daro calafkana adima haysa allah subxaana qaadira haya walaa adaan ugu qorin maalinta dhalatay walaa qofka dhalaan qorin walaa qof kale aan qorin allah subxaana qaadira xaqiisa ka ahaata maahe wixii xumaan inagu daya xumaan ku daya iska celiya odayga gacanta laga jabiyay ilaahay baa ku dilay hadad inta odayga xuska u gashay isna gacanta aadan ka jabin tus isna wuxuu yahay ha ugu dul qaadan waxa weeye gabadha sodogna kaasi ma waa shaydaan waa cajuus nacdal baa ku taale iska dhiciya oo iska celiya oo waxay yihiin tus wixii qalad inagu daya wixii xumaan inagu daya xumaan ku daya war waxa wanaag ku weydeen xumaan baa lagu helaa والله بلا وحواناك لغواي حمان بالغوهلا اسكع عليا نفط مرباي بحراي قبويا وكعا انتا دول قادتي انك بدن يالا دول قادني ابو هذا وصال ساو قويا اسكع عليا طبعا كافرات يلا بدا قعمودون بلايا محي كداريهين ابا انتي والله اسكع عليا اسكع عليا الهي ندولاي waxaasayni gala waa foorarkiina waa dhulka hooseed eegaysaan war waxa dhigiyo dheecankii niga qaaday war iska celiya naftu mar bay baxdaaye xamawaaniyo wanaag ma ku jirna ilaahay baa nalaho ilaahay baa na samaystay war ma yuhuudda xitaa yuhuudda ay naga jecel yihiin gaaladay naga jecel yihiin أنا وضد إسلانا وأنا ما تشعلا ما هتشعلاننا عد إن ربطانا لهين ونسككين علينا ونسككين دعينا وحي قلن نقطينا ونكدينا انتي وانا نقربتنا وانا قبان كربنا ما جرت الدلقاد ضمبي ما جره والله إنا لا يسكد القادنين وبلا إنا لا يسكد القادنين
waxaan la hadlayaa dadkayga gabooye wallaahi oo bilaahi oo talay haddaydaan iska celin dadkaas waxaa tihiin baa yar dhulkaad hoos u eegaysaan waa nalaga badan yahay niga badta waxa nalaga badan yahay malaha ninkayna warankaagu marin weydhaadu ha martaa layidhi iska celiya ilaahay baa ini uumtay nafta ilaahay baa ini gashaday iska celiya nafta mar bay baxdaaye maxaad u baqanaysaan biicaana loo kala baxo iska celiya intaad iska celin kartaan iska dhiciya nafta sagaalkooy ku dhalataad ku dhalatay sagaalku ku dhashaad ku dhalatay ha ka baqina naftu mar bay baxdaa walaahi oo bilaahi oo talay haddaad madaxa kor u qaadaan ood iska celisaan inaana liliicaga juglaynayn inaana mar dambe nilila guumaysanayn ilmaha caruurtu markay islaayaan markuu ilmo ka adkaado maalin walba uu ku laalaabtaa ilan waa ay wax ka adkaaday uu ku dili ma og tahay shalay ilan ku dilay maanta ku dili ilaa maalintaad gacan qaatood iska celiso wuxuu yahay aad tusta maayo kaama hadhayo war ninuuna warankaagu marin weydhaadu ha marto iska celiya ha la kaco gabooyow kaca dhiig yeesha dheecaan yeesha ha ka yeelina intii dulqaad hore noogu filan dulqaad dambana ma rabno dooni mayno hadday gabadhtiinana aanu guursano haddaad gabadh taayada guursataan haddaa wiilkiina una guursado hadduu wiilkaayaga iniga guursado waa la diiday labadaa qof iyagaa isjeclaada waxba nagama gelin laakiin markay faanfaan noqoto ha la ysku kaco iyaguba isku qabyaaladeeyaan soomaa ininkana qabyaaladii dhiigga yeesha waa nin walba ninka kuugu xiga magaca gabooye markaa maqsho dhiigu ha ku kaco ikaca dhiigga ikaca waa inay ka bilaabataa sheekadu iska celiya waxaan ma dulqaadumaanu ku jiraynaa war ma wanaagba walaalihiin baan nahay maxaa maguna waarna nacaabaad sheegaysaana cirka u duula cidayna rabtaan jirin wadda hag waxaan maxay xawayaankii doofaariin baad tihiin uf wax sanka laga qabsadaad tihiin bila aadama tihiin xoolana waad ka daran tihiin wallaahi oo bilaa talayna xoolana ka daran tihiin lama yeelayo dulqaad damba uu dhammaaday waxaa baratan shukriyo halkaas soo fadhiisanaysa oo dad walaalihiin aan oo miskiinta waan diiday anaaba diidanba yaa bartamaha Hargeysa ay geeya cajuuska xunka ah walaa ana gacanta kale ka jabin lahaay wallaahi oo bilaa biya ana loo kala bixi lahaa uf xawayaanka maxay ahay mid laba dawladda ku faanayaan away waraaw dawladdaad ku faanaysaan aw dawladdaad ku faanaysaan dadku iskuma jiro haddaad inanku ilaysaan oo dhamaysaa waa isla inankii laakiin gabooyo kuma jiro kama dhicin sheekadan weligeedna lama arag Hargeysa caan bay ahayd waa la iska yaqaanaa inay dadka sida ugaadha ay raadsan jireen waliba dadka gabooya war 77kii waa dadkii nila dagaalami jiray markii nila rushaynayo waa dadkii garabkiina taagnaa waa dadkii ni hiilinayay abaal ma lihidiine wallaahi oo bilaynaydan abaal lahayn war anu qof aan ka baqayo mala Allah subhanahu qaadiraan jooga Allah subhanahu qaadira uma ka baqanaya qof aan ka baqanayo malaha Allah uma ka baqanaya qof aan ka baqanayo malaha ka anna freedom America ban joogaba yaa wax iga qaadi kara yaa wax yeeli kara no one naagta itimaadana waan iska celinayaa adeer macaade naagi igu tagi kartana futa ma jirto ha maraykan maxay keenay nasiibka ay keenay iyo inaan dadka xun ka aarsado ee dadkayga dhiba istubrinta ah xawayaan foqol xawayaan min baati wallahi bila magaca Soomaali bila shu u baxay mida labaad Soomaali oo dhan iskuma jirto inta Allahooga ka baqaysa way badan yihiin dad badan oo ka soo hadlaan arkay qaarna waa iskiib gareeyaan وروحي اسكاب قراني دا قبيلك ولفتي دوحا كقال وحبنا قم قلين معايا دادك وناكسن دادك حن قبيالة ديستها ايان نعيا والله اف باتين حويان باتين قشن ما اركتن قبل دا سي اقلايان جيجيغا حسن قصول كيبا كاردن ماضي حد ku qoslaysan adeerkayo Hargeysa ka socotaa u malaynaya dhiigo ha kugu kaco galaas biyo dhar inta soo qabtay isku shub ana ku dhahaye ma faant inta ku faraxsan baa inaad taa u malaynaya laakiin waxa ha u bixina walaalkiis qabooji galaas biyo amba galaas biyo isku shubay markaan ku laaday ma aragti dadku igu kacay marka waxaan leeyahay dadku isku ma jira inta wanaagsan
ee walaaltinimada jecel ani macaayiyo laakiin doofaariinta kale aan caayaya eyda ah wallahi inta halkaas soo fadhiistay weligii macay tamin hal maalin aan joogo oo aan dhahay waxbaan dhawixiina waan ilaabay waayahay maya walaal horta ilaa baan kugu dhaarshay qof bila aadan ah oo sidaa loo galo oo dulmi lagu dilo oo nin bay gursatay loo dilo intee lagu arkay waa dhacday waa la arki jiray indhahaygaan soo saaray indhahayga ayaan soo saaray maantana de adduunweyne horumar buu gaadhay wax walba video baa laga soo duubayaa oo dadka loo soo dhexdhigayaa aniga alxamdulillahi rabbilcaalamiin mar walbana halkan waan ka hadlayaa xaqaana ka hadlayaa waxaana cambaaraynayaa odayga reebaadiyaha ah ee gabadha dhalay iyo wiilka reebaadiyaha ee gabadha walaalkeed ah xoolaad tihiin xoolaha xitaa inaga fiican wallaahi xoolaha inaga fiican waa kuway carabtu dhihi jiray alximaaru aswad dameeraad tihiin wallaahi bilaahi dad wanaagsan ma tihidiin inaad gabadhaasaa u gashaan ood wiilkaasaa u gashaan ma ahayn shareecadda islaamkaana u mehersay horeyna way isku qabeen inkastoo la yidhaha qurbasiru waa xaaraan oo lama ogola ay culimmadu isku haystaan laakiin haddana hore isku qabeen ha isku qabaane gabadhaada haddii aad ninkaaba u diidan tahay inaad shareecadda islaamka la tiigsato oo waxaad ku diidan tahay ama aadan ku rabin inaad halkaa ka caddaysay ahayd intaad gabadha bal haddaad gabadhaada dili lahayd orari dishabe ma noole ilmaha caloosheeda ku jiraan xitaa hadduu dhinto dembiga ku saaran kolle waad ogtahay daadad qof islaana tahay anu qof islaana inaad tahay umaba malaynaye kaanu qof jaahilaad tahay allaha kusoo hanuuniyo ilaahayna waxaan kaaga baraya maalintaad dhimato cadaabta inuu alla ku geeyo wallahi ilaahay aan kaaga baraya cadaabta inuu ku geeyo waalid matiid xoolaad tahay xoolo xawayaan ah ma garan weyda gabadhaada inaad intaad dawladda u tagto bal waxaad ninkaa ku diidantahay waxaad gabadhaada ugu diidantay diintu way ogoshahay gabadha waalidkeed waxa weeyaan kuwa qaada wayaaladeeda ama gabadha wiilka ku dara ama u diida waalidkii baa tahay cida kuma hayso maxaad ugu diiday haddaad u diidayso oodan qabiil ugu diidayn ood wax kale ugu diidayso dawladda iyo maxayday shareecadda islaamkaad la tiigsan lahayd maad garan weyda inaad tiraa gabadhayda ninkan waxa iyo waxaasaan ugu diidanahay ood halkaa bandhigtay intaad gabadhaada deldeli ee dili eed qof islaameed dili ood gacanta ka jabini ood wax ku samaynayso maad garan weyda inaa intaad maxkamadda tagto aad tiraahdo waxa iyo waxaad soo gabadha anu waalidu ma ihi cidna maya kuma tiraadeen waa haddaad waalid saxa tahay oo ilaahiisa ka baqanaya oo diinta islaamka haysta intaad tagto dhiilaad gabadhayda ninka waxa iyo waxaasaan ugu diidanahay accept inayna qabiil ahayn maahe haddaad laakiin qabiil ugu diidan tahay ood qabiilka ka dhimanayso gabadh intaad daldalayso eed saa u galayso maad iska dhaaftidaa oreyda qof maad ka soo qaadtidaa wax kaa dhintay oo kale mayna dhiman mana noola maanta nin baana qaba uur bayna lahay waa qof uur leh bal intaad qabiil halkaa kaa gaadhay bal dadkaasi maxay ku yeeleen dadka aad saa u necab tahay maxay ku yeeleen cudur aan dawo lahayn dhib badanaa cudur aan dawo lahayn baa ini galaye allah inagu dhex qarxiyo bug dhexdiina allaha ka bilaaba dhexdiina insha allah ka bilaabmada waxaa iman doontaa iga taariikha waxaa iman doonta ininkoon isguursan gabooyo dhaafe ininkoon isguursan baa iman doonta oo dhihi doona hadday jirtaa hadda maadaana nin ree hebela guursaday ininkoon isguursan oo isqalqalaa iman doonta ood annaga hoosteeda timaadaan ayaa iman doonta odayga jaahilkaayo ee sida xun u dhaqmaya xoolahaoo waxaa tahay male waalidna matid xawayaan baata kadaabaha u tahayna wuxuu yahay malaha ee ilaahay labadiina waxaa niiga baryayaa wiilkiinuna masiibadaad gabadhiina ku samaysay inay isaga ku dhacdo adigana mid ka daran ilaahay kugu habsiiyo haddaad xaqdarro ku socotay ood gabadha xaqdarro aad saa ugu samaysay ilaahay masiibo deg deg ah kaa muujiyo waalid ma tihid diinta islaamkana qof haystaas waxaa mala sameeyaba jaahil boorso weyn baa maqli jiray kan waa jaahil qool weyn ninka wiilka aabihiis gacanta ka jabiyey ee wiilkii deyrsaday ee meel laga galiyo la waayey ee gabadhiisii saa u galay
weliba hargeysa weyn gudaheega ay waxaas ka dhacayaan waraawi dadkii culimada ahaa hargeysa gudaheega joogay aw dadkii islaamka inta dadka waxa lagu sameeynayo kaana waxa jira waxaan aniga arkay for example daris baan leeyahay waxa laga yaabaa 30 sano iyo ka badan inaan daris ahay 30 sano iyo ka badan inaan daris ahay fiiriya gabadh aan dhalay ama wiil aan dhalay ayaa qadar ilaahay ma aragtay ama wiil dariska ama gabadh dariska ay isku ursadeen dadkii aan 30 sano saaxiibka ahayn een walaalo ahayn een isku naf iyo ruuxa ahayn bari aniga qaybta kale iga raacaya way iga faylsanayaan ima raacayaan waxayna ii raaceen because gabooyaan hay waa dadkan 30 sano qod wala cunaynay een dariska ahayn en ilaahay muxuu yiri 40 guri ka sokow aakhira waa lagu qabanayaa dariskaaga marka ugu horeyso waa dariskaaga wax lagu weydiin doono dariskaaga inaad u runta in kala aakhirina lagu weydiin waad ogtaa dad qof islaana tahay waxa la soo safanaysaa qaybta kale wallahi bila taariikhda anaga nagu dhacday wallahi bila waxaan ku qoslaya mataqaana waa maalinta nacay aslanba waxaan dhiigayga ahayn ama dhacankayga ahayn aan nacay maxaa u nacay maxay tahay dadkii aan ku soo akoray ee ku soo akbarbar xitaa ma dhalan waqtigii familkan isla soo koreen caruurtooda xitaa ani ma dhalin ma jirin ba hooyaday gabadh bay ahaydba dadkii nooca ahaa ayaa maalin waxa dhacday inuu waxoogaa is afdaaf iyo maandaaf uu yimaado hooyaday macaan أنا قاعدة مجعل ويا أترى قال تالك وما دافعيو مركا وحاجرة كوما هيلين أيان أوكي فاميلا دي باكو صاحري هذا وحاجرة ده أنا إلى ده الشيء أو فاميل كيجا وجبوية هذا إيه هيلين لهايان إيه ما هيلين كرا وعيد عال كابضن إيه بيا كابضن بوا كافية والله ما قدرت بالله ما قدرت ده كاس عبسي أي قبان إيه ما هيلين كران way baqanayaan caawa guriga lagu jajabini bari baa lagu jajabin waa la shiidi waxa laga yaabaa muddo 2 wiiga inayna bada xaafadaba ka bixin oo dabalaayada adduunka ku habsato cabsi awgeed ayna meel laba gaari karay oo baqdaan waa cabsi awgeed inayna meel laba gaari karay marka bla aadanka sidiisaba ani meelaha badan ee soo joogeen soo arkay Djibouti xitaa waan tagay noloshayda ma arag Djibouti waan tagay Djibouti aabaan u jeclahay waan magaalada aan xishmeeyo inta magaalo Soomaali aan arkay waa magaalada aan xishmeeyo waa magaalo la kala dhaqan yahay waa magaalo aan qabiil lahayn waa magaalo huun la isleeyahay nin walbana uu shaqaysto waa magaalo dadkeegu is jecel yihiin inay nabad tahay maxaad ku garan waligeed dagaalka ma wadacaba ma aragteen ilaahay baa nimceeyay waa meel dadkeegu is jecel yahay waa meel dadkeegu isku duuban yahay kana qabiilkaas ma jirto how many gabadha gabooya ciisa qaba cid kala qabto la isqa qaba wax ku soo baxaya ma la dagaalamaya ma jirto sharci baa ka jira dawlad baa ka jirta hadduu qof aad iska karweedo dawladda tagsaad ku soo dacwanaysa halku jooga lagu qabanaya waa magaalo nabadi ka jirto dawlad kasta way leedahay in mucaarad ah laakiin anu Djibouti sideedan u taageersanay maxaan ku taageersanay waa magaalo nabad ah waa magaalo dadkeedu is jecel yihiin waa magaalo la kala dambeeyo hatta umaaman ararka madaxweyne oo la caacaye intaan Djibouti joogay dadka waxaan arki jiray madaxweynahooda ugu banaan baxaan shacabkiisa u jecel yihiin wayba wooyayaan banaftaaba ka baxaysa dad madaxweynahooda soo qaado ama gabooya ahaada ama ciiday doonta ahaato markaas ani Djibouti sideedaan u jeclahay magaalooyinka kale laakiin waa la iiga dayriyaa jigjigana dawaaba meeshaanu ka baxnayba cidna walaal xagaa waxba naguma yeeli karto qofkii reejigjiga uu og yahay qof gabooya inaan jigjiga waxba lagu yeelin waa meelaha kale meelaha la isku cuno marka sheekadayna waxba ila sii dheeraanin waxaan ka hadlayaa gabadha sida xun loo galay kulli waad aragteen qof islaan walaal oo gabadhiisa saa u galaya oo ilmuhu dhalay saa u galaya dadka kale bila aadankaana maxaad u malay balse wiilkii guursaday maxaad u malay bal faamilkiisi maxaad u malay
dadka xaqooga hala siiyo dowladdu waxa u qabato haddaan Somalilander laga yahay iyo haddaan la ahayn waxaa loo qabta dadkaas ceeb anigi nima marmarinayo waxaan jirana iskama soo dhoobayo qof walbo bilaa aadana videoga markuu arko ilin baa saa uga da'aysa kaana qofka islaan ah jirka dubaaxinaya islaanimaduna ciyaar ma aha nacam halka kelmad ay gabadhu dhahaysaa meel ka taabanaysa maxaad u guursatay ninka gabooye dartiis baa la igu dilayaa bay tiri aroontigiisa uurkay sheegaysan in xilligan ku jiro because qof uur loo rafaad ka maray ilmo saacadan kuma jiri karo dadkaas way qaldameen aad ba u qaldameen qalad weyn bay galeen ilaahay bay qalad ka galeen Soomaali bay qalad ka galeen annagii qalad naga galeen weligoodna ma caafinayno inta qof ee dadka saa u gasha weligood ma caafinayno laakiin gabooyo waxaan kula dardaarmayaa wallahi aan kula dardaarmayaa inaan iska celina mooyo wax noo hirgelaya ma laha adeeraha meesha laga kaco wallahi bilaa maanta qabiil ay socotaa iska celiya hawaaba yeelina naftu marbay baxdaaye waa ka xumaa waxa wiilka iyo reerkooda ku dhacay ama gabadha masaakiinta ku dhacay wala dhagar mayna gelin dhiigisnaana mayna gelin cidnana mayna dilin ee calafkeega ilaahay ka dhiga inay ninka guursato calafkeegii bayna rafaadka u martay oo silca u martay waxaan leeyahay dulqaad dambe yaan la yeelani dulqaad dambe ha dhamaado wanaag la diid walaaltinimo la diid hal iska celiyo wallahi inaan iska kiin celina mooyo walaal caafimaad kale ma liidin wallahi bila inaan iska kiin celina naftu marbay baxdaa mooyo caafimaad kale lama laha andayna gabooyo waa laga badan yahay alla daayo ilaahayba waa kaligii afar gacmood iska hor imaadeen mid la dila Allahu a'lam wixii hadda ka bilaama seefta galka laga saaro anigana waxaan rabaa inaan akoonti inaan sameeyaba rabaaba sidaan dadkayga wax ugu qaban lahaa tan waa rafaad waa silic waa dhib waa xanuun heer waxaa la igaarsiinayaa dadka inaan wallahi soo wanjalo oo soo cadeeyo meelahay ka yimaadeen dadka waliba wadanadooda nabad yihiin inaan qarxiyo oo sheego meelahay ka yimaadeen dawladda Mareykankana wallahi bilaa dadra wanjal baan ku noqonaya aboomada xaaga in la balqsina oo lacag you know that if you want FBI or whatever else sid dhibiyar aad lacag badan ku helaysa laakiin very hard noloshaad dhanna ku baaba'aysa wallahi ani gabooyo nafteeda u baabeena hadii waxaan la joojin waayo wallahi nafteeda u baabeena waxaan xaq darro weeyaan talabaad magacyadeeda ku soo baxdan haddana saasaad u tumaysan dadkii niyaag joogay magacayagu su dahabka u yahay ee qurbaha ugu joogtaan iyo sad dadkooga u silcinaysaan fiiriya anaga ma inima dulqaadanayno waa inaan joojino waxaas ma soconayo wallahi bilaa inayna soconin waa la isku baaba'aya wixii hadda ka dambeeyo waa la isku dhimanaya ma jirto wax kale because ka anna dadka sida loo galay annagayna la dhashay waa dhiigayagii waa walaalahay waa dheecaankayagii awood ma laha colka badan iyo biyo ka badanba waa ku hafiyaan ada dhulkiiba hafinaya carradiiba hafinaysa dadkiiba hafinaya subhanallah war annagu waxaan yeelay ma laha maxaan kiin daba dhigay masiiba ilaahay nagu riday bul allah iniga dhigo Soomaaliya every day qarax ka dhacday wallahi billahi ilaahay waxa iniga bariya rabadaana soo galatay inay iniga dhex bilaabanto hadda dhibka joojin weedaan allah iniga dhex bilaabo olana allah inigu shido rabbiga iniga bariye wallahi waa xaq dar waxaad ku dhaqmanaysaa waad ka hadli kartaan waxaad ka samayn kartaa laakiin you don't care waa gabooyaad ka dhimanaysaa dawladda ka dambaysa culimada ka dambaysa wax ilaahay dartu hadlaya ma jirto culimada hore baan ula hadlay shaqyada hore baan ula hadlay wax ka hadlaya ma jirto ilaahay iniga isku kijeediyaan ilaahay masiiba inigu dhacday inta cudurka uu calooshiina ku jiro caafimaad ma helaysaan wallahi billahi thumma wallahi salaad duhur mar dhaway tukaday ilaaha inii bariyo wallahi billahi waxaan dhahaa ilaahu qalbigayaga isku kaaya nadiif laakiin waxa leeyahay ilaaha qalbigiina ha isku kiigubo ka anaga sida noo galaysaan waa xaq darro sidan waa dulmi
dulmi weeyaan laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah waxa lagu dhaqmayaa waa xaq darro walaal maxaa xaq darro weeyaan waay dadka maxayna yeeleen war ilaahay laba uu isku baneeyay hadday iskuursadaan qabiil ahaana la iskugu diidayaa waay ininka ugu badan caloosha ka bugtaan no way that's not good wax fiican ma aha anaga dulqaad waan yeelanay wanaag waan ka hadnay no more dulqaad dambe ma jiro wallahi bilaa dulqaad dambe ma jiro gabooya ha kacaan gabooya dadkayga ha kacaan ha ka dhiidhiiriyaan wallahi waxaan dulqaad ma jiro dulqaad way isku dhamaaday no way anaga uma dulqaadanayno ani dura markaan ooyayay people got surprise waxay moodaya wax beena inaan ku ooyayo guys you see the truth waad aragtay waxaan runta ah this is now oonu anaga qaadanayno no ma qaadanayno waan diidnay ilaahay baan awuntay ilaaha adduunkana keenay ilaaha naftana geliyay ma rabno waxna guumaysta no waxna guumaysna ma rabno ininkaba inaan ila guumaysta ma rabtiin ma jeclidin inaan ila guumaysta ma jeclidin marka anaga dadkayga walaalaha aan jecelnahay mar walba aanu u roorno hadday sida noo galayaan walaalnimo dulqaadanayo dulqaad waa dhammaaday maxaa la isku wareerinaa dulqaad waa dhammaaday qof walba videoga arka walaal jirkaa ku xanuunaya qoorteeda gabadha say tahay gacmaheega aniga markii la iisoo diray asaay wax kale inuu yahay balse waxaan arkay wax surprise ah no naf walba naftaada ka soo qaad adina sida lagu galma jeceshahay no ma jecleed waay laakiin waay qurbaha joogtaan yaa saa inii gala no one hadduu qof saa kuu galo xabsi baa la geynayaa waa la xidhayaa dhib weyn buu la kulmayaa hadda dadkaa sidaa loo galay gabadha saa loo galay odayga saa loo galay wiilka saa loo galay maxaa loo qabanayaa no waxaa laleeyahy wax qootaa la isku keenaa no waxaa ma soconayso anaga dulqaad waa naga dhammaaday daseed dulqaad dambe ma jiro an waxaa leeyahy dadkii gabooyaha no dulqaad dambe ma jiro naftu marba baxda iska dhiciya wallahi iska dhiciya adduun weynaha arkaya wallahi bilaahi iska dhiciya dad aqoonyaan ah oo aqoon leh qurbaha inii jooga oo wax walba inii qabanaya dadka wadanka jooga iska dhiciya waxaa dhicin kartaan ha u joojinina waa magaca qudha ee wadanka Mareykan ama Yurubta meel walba laga aqoonsan yahay waa gabooye waa magaca qudha ee lagu soo baxo waa lis ogyayaa marka waxaan leeyahay dulqaadku waa isku dhamaaday wax dambe dulqaad ma jiro dulqaad waa ka daalay waa walaalo maxay nagu dhacay baryamaan ku jirnaa yaa baryo waan ka daalay ilaahana leh baryadii nafta intana noo timaaday no more baryo ma rabno waa nacna baryo no baryo dambe waa isku dhamaatay waxa hadeed waxa weeyaan inaan iska kiicelino inta weeyaan dawadu ama cudur hay nagu jiro ama naxal hay nagu jiro ama miina hay nagu jirto وعلى وحي الرباعي نقول أنا إنا إسكين علينا وما بكو قبوبينابا ما يديك يدا حلاشتين ضمن ماذا يدا حلاشتين إسلام ماذا يدا حلاشتين وان ديني وإسكت مات إنا إسكين علينا جرتا أو صدا نويا سيسان إسكت درن أنا قبول المعاني يولا المعان جعلك أنني قبني إنك كدغي maxay xar maxay idinka ka dhigay marka anaga waan diinay waa iska keen celinayna wixii hadda ka dambeeya dulqaad waa isku dhamaaday Soomaali wayna dulqaad gabooy waa diidan yahay no more dulqaad dambe ma jiro waa in salaamaya dhamaantii aad ba u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu saasa u gubanaya wallahi billahi